tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa baraha bulshada ay ku xidhiidho sida facebook iyo twitterka aad looga hadlayay muuqaalka wiil soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo isaga oo aad u qiiraysan ku qaylinayay arfarmaajo iigeeya cabdulaahi maxamuud cismaan daanyarow oo ka soo jeeda magaalada jowhar ayaa haddaba xalay loo geeyey madaxweyne farmaajo. wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay waxaana ugu horreyn weydiisay sida uu dareenkiisu yahay kadib markii uu la kulmay madaxweyne farmaajo. waxaad bal iga warantaa doorashada ma la socotay ka hor intaada dibadbaxa bilaabin? si fiican waa la socday. teeda kaleenta 2011 ayaan baninka aniga inshaar makas. maxaa uu inshaarte? inaa la dooranayo makas sunan uu tukanayo ma. haye in la doortaa marka ilaahay u baryeysayba. kulli macnaha bareentiina ilaaha macnaha u dhaligo. haddana waa la doortay waana ku faraxsanaa 100%. teeda kaleenta haddana waan la kulmay kulli wixii war eena waa isdhaan magas. markaad la kulantay maxaad ku tiri? wallaahi waa mahadsantaan tahay 100%. sida adiga lagu doortay macnaha waxaan dareemayaa macnaha hawada xataa inay si fiican u tagtay waana ku faraxsanaan tahay 100%. haddana macnaha taageerahaadan isalkiin haddana taageerahaada ayaa nahay. haddana aan jeclaa lahayn inaa adiga oo dadkaada iyo dadka iyo diintaada oo daafacdid walaalahana oo adiga oo garab oo siisay. waa gartay markii aad banaan baxaysay markii aad lahayd arfarmaajo ii geeya waa lagu geenaa maxaa ka rabtaa markii lagu weydiiyey waxaad sheegatay in iskuullada iyo dugsiyada iyo wadooyinka inuu dhiso aad kala hadli lahayd marka ma kala hadashay shalay markaa la kulantay? maya maanta mala hadlin laakiin caadi waa wada kulannay. wixii wada hadal kuley waa iskugu dambeynay. haddana waxaan ku sheegaa kuley aniga sidaan iskugu soo laaban doona sidaan malaynayo. hadda kuley waa is aragnay waan isalaanay kuley alxamdulilah waana ku faraxsanahay maadaama waan is aragnay. waa gartay cabdulaahi daanyeerow bal waxaad iiga warantaa markii aad dibadbaxa sameynaysay hadaladii aad ku dhawaaqaysay dadka oo dhan way ka gadantay waa la wada maqlay. maxay kuula tahay in hadalladaada ay macno u sameeyeen? wallaahi horaa loo yiri bil ku jecel boqol maxaa kaa karaamo. haye wallaahi cawadaas waxaan sameynaya xataa ma sheegi karo farxadda iga badato ma kasta. marka haddana farxaddaadii oo badatay aawadeed hadalladaada isaga hadlaysay ilaahay amarkiisa waa kuu qarxeen wakaasaa bil banaanka kuu taaganay noqoto. si fiican ma noogu celin kartaa intii yareed oo aad dhehaysay? waa ku celi karaa maasha allah. maxaan ugu celi waan waxaan dhahayay farmaajo haleegeeyo farmaajo maleegeeyo farmaajo haleegeeyo xamar luka haleegu geeyo farmaajoan ubaana farmaajo ma ii geesiino makas. markii lagu geeyey maxaa dareentay oo codsigaaga laga jawaabay? macnaha waa isalaanay laakiin aniga usiga kama wada hadlin macnaha codsi wax la dhahay makasta. haye kuley inaan dib iskugu soo noqonayna ayaan rajaynaa weli ana. waa garta madaxweyne noocee jeclaan lahayd inuu farmaajo noqdo? wallaahi waxaan jeclaan lahay madaxweyne bulshada soomaaliyeed inaas wax u qabto oo laamiyadana wax oo iska qabto isbitaallo iyo iskuulal oo furo oo xanaanada oo caruurta oo agoomanka xataa oo iskugu waxeeyo. adiga kulley waa la socotaa soomaaliya dhibka oy leedahay marka waxaan jeclaan lahay soomaaliya dhibka oy leedahay inaas wax isbedel aad iyo aad u weyn inaas ka qabto saasaan rajaynaya. adiga reer jowhar aad tahay jowhar maxaa ka qabataa? wallaahi jowhar aan ka qabtaa beeraley ayaan ahay. dhul qodataan ahay dhulkay ayaan iska qotaa makasta. xabadii galey oo ku rito xabadaas galey aan iska waraabsanaan iska falanaan wax ka sugamo iyo ilaah. webiga jiinkiisa aad degan tahay? si fiican qaas ahaan xaafadda kulmis. waayahay marka haddii dawladdan ay dawlad macno yeelata ee noqoto oo soomaaliya amni iyo kala dambeyn iyo horumar ay gaarto maxaad ku haminaysaa inaad noqoto? maxaa maanka ka guuxayo ilan waad dibadbaxdee maxaa kugu dhaliyay inaad soo baxdo? walaale hadda aniga waxaan sii rajaynaa dhulkayga ayaan sii ballaari lahay soomaha oo tacabkayga ayaan sii macnaha aan waasac kasii dhiga lahay. teeda kaleenta weli xataa waxaan sii rajaynaa inaa adiga oon sidii aniga cagaf iyo waxaas oo macnaha oon ku waxay ma kastaada.
meeqa daraboo beeraa leedahay hadda adiga ku abuuran? hal eetar ayay dhantaa waa 10 iyo 2 jibaal. sax waa gartay 12 jibaal waaye. haye marka maxaa abuurataa? wallahi galey iyo digir ayaan abuurtay marmarka qaarkeed ayaan ka dhex gishtaa. allah caruur waxa ay joogtana ay joogto teeda kaleenta ilma agooman oo aabay iga dhintay kuriskooda ayaan hayaa oo ciyaalka ana u weyn Soomaa. cabdulaahi maxamuud cusmaan daanyarow oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a da saare cabdi axmed. halka kala socoteena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.